waxaan ka hadli doonaa mid ka mid ah sababaha dhiigga ka yimaada hooyada bilaha dambe ee uurkeeda. waxaan ka hadli doonaa ibida soo dhacda xilliga uurka iskuna aadisa duleelka dhalmada laguna magacaabo placenta previa. ibidu waa xubinta la qaybta sare ee minka siisana uurka nafaqada oksijiinka sida oo kalena maamusha wareegga dhiigga ee uurku jiraha kana saarta wasaqda si ay ugu dambeyn u gaarsiiso u diyaar garowga dhalmo dhameystiran. mararka qaar waxa dhacda in ibidu ka soo dhacdo booskii ay kaga dhaganeed minka oo ahaa qaybta sare una soo dhacdo qaybta ugu hooseysa ee minka iskuna aadiso duleelka dhalmada taa oo lagu magacaabo placenta previa. haddii ibidu booskeedii ka soo dhacdo waxa ay ka soo hormartaa ilmaha dhalanaya taas oo keenta in hooyadu si sax ah u dhali weyso ugu dambeyn la qalo. uurka khatarta ugu jira in ibidu soo dhacdo. hooyada uurka leh uurkeedii horena ay ibidu ka soo hormartay xilligii foosha. hooyada mataanaha sida, hooyada da'da ah horena u dhali jirtay ee uurka yeelata. hooyada leh ciladaha minka sida qaliin lagu sameeyay minka, buro ama caabuqa minka. noocyada ibida soo dhacda. ibi meesha hoose gaarta oo duleelka dhalmada xirta. ibi kala bar xirta duleelka dhalmada iyo ibi wax yar ka soo dhacda halkii ay kaga dhaganeed minka isla markaana duleelka dhalmada aan xirin. calaamadaha lagu garto ibida booskeeda ka soo dhacda iskuna aadisa duleelka dhalmada. dhiig cusub gaduudan oo aan xanuun lahayn kana soo daata duleelka dhalmada wixii ka dambeeya isbuuca 22 ee uurka. danqasho gumaarka ama kafka. haddii la eego xubinta gudaha ee taranka oo lagu arko dhiig fresh ah oo gaduudan. dhibaatooyinka ay keento ibida soo dhacda. hooyada oo shoog ama wareer gasha. ilmaha oo aan bila dhameysan. dhiig la'aan. hooyada oo waqti badan foolata dhalina weysa. ugu dambeyn dhimasho hooyada iyo uurku jiraha. baarista lagu ogaado ibida booskeedii ka soo dhacda ee isku aadisa duleelka dhalmada. waxa ugu fudud ee lagu ogaado waa kombiyuutarka uurku jirta ee ultrasound-ga kaas oo lagu ogaado halka ibidu taalo iyo inay kaga soo horeyso ilmaha oo ay kaga aadan tahay duleelkii dhalmada. daweynta ibida soo dhacda. haddii xanuun badan aysan dareemeyn hooyada ugu horeyn waxa la faraa inay dhaqdhaqaaq yareyso oo ay nasato. in isbuucii mar ay takhtarka la kulanto. haddii si dhameystiran ibidu u soo dhacday waxaa lagu dadaalaa in uurku jiraha la gaarsiiyo in wadnihiisu shaqeeyo oo waxa la duraa hooyada dawada lagu magacaabo dexamethasone. haddii xilliga dhalmada la gaaro waa la qalaa hooyada waayo ibida ayaa ka soo horeysa uurku jiraha markaa kama dhali karto duleelka dhalmada. haddii xaalad adag ay soo wajahdo hooyada waxaa la sameeyaa baaris guud, yareynta dhiigbaxa, hubinta waxa sababay iyo ka warqabka wadna garaaca uurku jiraha. haddii dhiigkarka xilliga uurka uu jiro iyana waa la xaliyaa oo waxaa la siiyaa hooyada uurka leh dawada lagu magacaabo nifedipine iyo kuwo kale. haddii uu dilaaco xuubka uurka iyada oo laga hortegayo caabuqa waxaa la duraa hooyada insulin 2 gram oo cirbad ah. kadibna waxaa loo wadaa amoxicillin 500 gram oo kaniini ah 3 waqti. qoraaladan iyo kuwo lamid ah oo ku saabsan hooyada uurka leh laga soo bilaabo marka ay uurka qaado ilaa ay ka dhalayso iyo 6 bil ugu horeysa xanaanada ay u baahan yihiin ilmaha dhashay waxaad ka daalacan kartaa qormooyinkiisa buugga qoys deeqe kaas oo aad ka heli kartid lambarada shaashada ka muuqda. waa mahadsantihiin.